waxa xasiloonaan caga badan ku taagnan ay ka jirtaa duleedka magaalada Kismaayo oo ku dhawaad 10 saacadood maanta dagaal ku dhex maray laba beelood oo wada deegaanka dagaalka waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa jiro barakac baahsan oo ay sameeyeen bulshada labada dhinac si aan wax badan uga ogaano xaaladda guud ee deegaanka ayaan waxaan waraysi kala yeeshay Cabdinuur Maxamed oo ah wariyaha xusujoog ee Jubbaland saakay abaara afartii ayaa uu dagaal ka bilowday meesha lagu magacaabo Koyama oo ka tirsan degmada Kismaayo meesha waa meel istiraatiiji ah waxa isku hayay laba beel oo wada deegaankaas dagaalka runtii wuxuu ka bilowday dagaalka uu socday wuxuu ka bilowday dagaalka dhul daaq ah ama lahaansha dhuleed laba beel ayaa meesha ku dagaalamay labada beel waxa lagu kala magacaabaa awrmala iyo majarteen runtii beesha majarteen waxay sheeganaysaa dhulka inay ayada leedahay waxay leedahay beeshan awrmale annaga ma soo dejinay naga gurto adigu isku soo duuduwa saaki abaar afartii ayaa dagaal meesha ka bilowday dhimashada labada dhinac waa 6 ruux beesha lagu magacaabo awrmale ayaa dagaalka soo qaaday waxa ka dhintay 5 ruux 6 ruux ayaa ka dhimatay 5 qorna waa laga qaatay halka beesha majarteen ay soo dhimatay 1 ruux iyo 1 nin dhaawac ah dagaalkii halkaas ku yar qowday abaar 6 saac ayaa hadana la isku soo laabtay dagaal ayaa hadana meesha ka bilowday 3 ruux ayaa kaga dhimatay beesha awrmale hadana halka beesha majarteen ayana 1 kaga dhimatay hadda dagaalku wuu istaagay inkastoo la isku hulguranayo dagaalka marka dhowr jeer waa uu soo laabtay marka laga soo tago in dhul daaqsimeed la isku hayo iyo dhulka in qolo walba ay sheeganayeen inay ayagu leeyihiin wax xala oo la raadiyay ma jira oo lagu kala badbaadinayo dhiiga daadanaya maadaama dhowr jeer ay isku dayeen odayaal dhaqameedka magaaladu inay galaan arintan walaalo ma suntahay su'aal muhiim ah waxaan u maran muddo hadda laga joogo 8 usbuuc ayaa arintan loo fadhiistay odayaal ka kala socda labada beel ayaa u fadhiistay arintii way dhameeyeen haddana dib bay u bilaabatay arintii ayada ahayd waxay noqotay mid aan fara ka qodnayn marka xilligan hadda maadaama ku dhawaad 10 saacadood waqti yar oo kaliya dagaalkii uu istaagay hadda xaaladdu maxaalad kacsana mise hadda xaaladdu way qabowdaa la leeyahay ma walaalo xaaladdu waa hadda ma kacsano waa la isku nasanayaa labada dhinac runtii ilaa si laga bilaabo afartii ilaa hadda dagaalamayeen goordhow marka dagaalku hadda waa midadkii la kala qaadanayaa waa la isku goranayaa laakiin dagaalka ma istaagin meesha waxa ka muuqata saasaan colaadeed waa gartay marka dhulka lagu dagaalamayo marka istiraatiijiyad ahaan xeebta intuu ka xiga walaal dhulka lagu dagaalamayo waa dhul istiraatiiji ah waa dhul daaqsimeed waa dhul xeebta ku tiirsan xeebtan dhankan Kismaayo ayuu ku tiirsan yahay dhulku waa marna wuxuu noqon karaa dhul daaqsimeed oo xoolaha markii abaarta ay dhacday daaqsimaan beerana waa laga samaysan karaa waa dhul xeebta dhanka saa ugu tiirsan oo dhul istiraatiiji ah waa gartay markii hadda dhulkii lagu dagaalamay oo saaka dagaalku uu ka bilowday labada dhinac ayaa gacanta ku haya hadda walaalo runtii dagaalka saaka waxa soo qaatay beesha awrmala labada dhinac hadda way kira fogyihiin meesha hadda isku hayay oo labada dhinac hadda wax gacanta ku haya malaha laakiin labada geesi ka kala duwan yihiin waa gartay xilligan maadaama dhulku uu yahay dhul daaqsimeed in dagaal uu dib uga qarxo maxaa soo dejiyay ma waxa jira roobabkii guga oo deegaanka ka curtay oo daaqsintii soo saaray walaalo maya ma dhihi karna taa sababtoo ah dagaalkan dagaal waxa uu ahaa aad u adag heer waxay noqotay in carruurtii la qowraco oo yaraan 100 iyo waxba hadda ka hor ku dhimatay marka dadka Soomaalida waa iska garanaysaa utuna ma hartay dhahan nin walaalkii la dilay ayaa wax soo xasuusani halkaas ku dii marka dagaalkan hadda runtii wuxuu haddana dib ugu bilowday hal qoys oo 3 ruux ay ka baxday ayaa wuxuu u istaagay jidkii dheeraa ee Kismaayo ilaa iyo dhankan badada ilaa kulbiyo ilaa 3 dhankan galay ayaa waxay u istaageen dad saaran gaari oo beesha majarteen halkaas ay ku jireen marka sidaas ayuu u bilowday waa utanadii oo harla ma ahan daaq hadda waxaan ku jirnaa dhulkii hadda waxaan ku jirnaa xilli roobeed oo cooska waa suuran yahay laakiin utanadii baa socotaa hadda la iskuma hayo runtii la iskuma hayo daaqsin iyo waxa hadda la iskuma hayo laakiin utanadii hore oo dhacday baa la isku hayaa
beeraha dagaalamayo marka ma waxay kala degan yihiin dhulka hadda lagu dagaalamay saakay labadiisa geesood oo dhulku wuxuu yahay dhul seer oo aysan cidna soo gelin oo qolo walba ay ka baqayso in lagu dilo ها ولا ها halkaas ay degan yihiin dadku inta badan dad waxay ahayn reebaadiya oo xoolo dhaqato ah labada dhinac kala degan yihiin hadda labada meesha lagu dagaalamayo sida aad tahay ormada iyo majartanka waa dad bari soo inta badan way degayeen oo dad wala way degayeen in badan oo sanado badan way degnaayeen marka hadda kulay qoladan ormada majartanka waxay dhigeen anaga askare oo noo guur anaga marka hore idinkeena waa gartay marka laga soo tago marka in mar walba meeshii dhig uu ku daadanayo cuqaashiina aysan faragelinaynin dowlad goboleedka Jubbaland kaalintiisii ku aadanaa in uu labadan beelood kala qaado oo ciidan uu kala dhex dhigo ma qaatay kaalintiisa walaal maya arrinta ayada wax maamul oo galay sida la sheegay ma jirto maamul goboleedka hadda ka hor mubaarag isku yeeray la sheegay oo dhanka Kismaayo soo imaadeen arrinta ay suurtagal waysay oo waxay noqotay بيكون دبعان وأرنت غيره ويحمل يعني مركب مرة في دقائق من صار الله حل كلام الله يعني ما قال ما ممكن يحلوا يعني وحنا قد نفرح على هذا labada reerood marka in la isku daayo oo dadka ay isku baaba'aan taasi kuma jirto maskixiyan marka labada reerood dhexdooda xataa wax odayaal dhaqameed oo wax kala badbaadiyo ma jirto miya walaal hadda ka hor galeen ku dhahay labada dhinac labada beelood odayaal ka kala socda arrintan gale way raqoojeen haddana dib bay u bilaabatay taaka waxaa la sheegay in ergeer la soo diray ergeer xitaa la soo diray waxaa la sheegay in dad ay ku dhinteen qaar ergeer ay macnaha la leeyahay waa gartay waka marka dhulka hadeertaan la isku haysto maadaama uu yahay dhul daaqsimeed labadii reeroodna mar walba ay isku dilayaan hal aan dagaalka ahayn oo hadda dadkii lagu kala badbaadinayeen xilligan uusan muuqan saansaanta hadda xilligan ka muuqata marka deegaankii ma waxa la leeyahay dagaal baa laga cabsi qabaa inuu dib u qarxo mase xoogaa jawigu degan yahay ugu dambeyntii walaal ma ahayn tahay su'aal aad u qiimo badan bisababta meel lagu dagaalamo si garanaysa jidkii waa xirmeen barakac badan baa jira dadkii inta badan labada qalin nin walba meel buu cararay barakac aad u fara badan baa jira oo dadkii ay ku kala yaacayaan oo nin walba uu cararayo saameyn badan baa jirta oo jidkii oo xiran baa colaad darteed loo gooyay waxaa laga yaabaa inay xanuuno badan iyo gaajo badan iyo masiibo badan ay meesha ka imaato laakiin hadda waxaa muuqata waa saasaan colaadeed oo cidna ayna ku dhex jirin waa gartay maadaama dadkii labada dhinac ay barakacayaan magaaladii Kismaayo ay tahay halka kaliya la aadi karo labada dhinac marka labadii qabiil maadaama la isdhex mari karin dadkii barakacay xagee u kala kaceen waa maasantahay su'aal muhiim ah dadka inta badan sida meelo sheegay anaga hadda meesha goorta ma joogno laakiin nin walba waxaa meelo sheegay in deegaankiisa iyo meesha uu dhammaa uu rafiday oo xitaa dadkii isdhex degnaa ay kala soo yaacayaan laba beel ayaa meesha ku dagaalamaysa labada